السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دواد warbixin ku saabsan Mareykanka oo gacanta ku dhigay shidaal malaayiin dollar ah oo ay leedahay Iran. Inta aan warbixinta u gudagelin halka aad nagala socotaan waa Sahan Channel. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar, sina share garay oo la wadaag asxaabta. Mahadsanid. Dowladda dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay la wareegtay 4 markab oo shidaal ah oo laga leeyahay Iran isla markaana ku sii jeeday dalka Venezuela. waa shixnadii ugu ballaarneed oo shidaal ah oo Mareykanku gacanta ku dhigaan ku dhawaad 1.1 milyan oo fuusto oo shidaal ah ayaa gacanta lagu dhigay iyadoo gacan laga helayay wadamo saaxiibo la ah Mareykanka sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in maraakiibtan ay jabiyeen cunaqabatayntii Mareykanku ay Iran ku soo rogeen. Safiirka Iran u fadhiya dalka Venezuela ayaa sheegay in aysan jirin maraakiib shidaal ah oo Iran leedahay oo gacanta lagu dhigay. garsoore ku sugan Mareykanka ayaa soo saaray waraaqdan lagu soo qabtay shixnadan shidaal ee saarneed 4 markab kadib markii ay dowladda Mareykanku kiis u gudbisay maxkamadda bishii aynu soo dhaafnay. bayaan ay soo saartay wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay ku guuleysatay gacan ku dhigida shidaal malaayiin dollar ah oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iran. ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ah laan ka tirsan ciidamada Iran kuwaasi oo ay Mareykanku u aqoonsan yihiin ururo argagixiso. hantida la qabtay ayaa waxay iminka gacanta ugu jirtaa Mareykanka ayaa lagu yiri bayaanka iyadoo aan wax faahfaahin ah laga bixin goobta maraakiibta lagu qabtay. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in markii gacanta lagu dhigay maraakiibtaasi ay ciidamada badda Iran ku guul dareysteen isku daygoodii ahaa in ay maraakiibtaasi soo koraan. sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee AB u sheegay in markii maraakiibtaasi sidii shidaalka la qabsanayay aan la isticmaalin wax awood military ah taabadalkeeda shirkadaha maraakiibtan iska lahaa lagu hanjabay cunaqabateen si loogu qasbo in shidaalkani ay Mareykanku ku soo wareejiyaan. macadda ilaa ay iminka goobta ay ku sugan yihiin maraakiibta kala ah Bella, Biringi, Banda iyo Luna. danjiraha Iran u fadhiya dalka Venezuela ayaa wararka sheegaya in la qabtay maraakiib sida shidaal oo ay Iran leedahay ku tilmaamay dacaayad been abuur ah. xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa aad u sareysa tan iyo markii maamulka madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee u dhaxeeyay Iran iyo dalalka reer galbeedka.